faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar gaadma oo galabta lagu dilay saraakiil sarsar oo ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan qaybta 12aad kaas oo ka dhacay gobolka Galgaduud. Weerarkan waxa fuliyay maleeshiyada hubeysan waxaana ay la beegsadeen gaadiid ay wateen ciidan ka tirsan xoogga dalka oo ka ambabaxay magaalada Gurceel kuwaas oo ku sii jeeday degmada Balanballe. inta la xaqiijiyay weerarkaas waxa uu sababay geerida 6 sargaar oo ka tirsan militariga Soomaaliya, 4 sargaar oo aan nolol iyo geeri lagu hayn iyo dhaawac tiro kale askara. sidoo kale weerarkan waxa ku dhaawacmay 3 kamid ah maleeshiyada weerarkan fulisay sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda. weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay inta u dhaxaysa magaalada Gurceel iyo degmada Balanballe. saraakiisha weerarkan ku geeriyootay ayaa kamid ah dufcad ciidan oo galabtay tababar lagu soo xiray xirada Harqaboobe ee Gurceel ku taal sida aan wararka ku helnay. waxaana saraakiisha geeriyootay magacyadooda qaar kamid ah lagu sheegay Korneel Xalana Dhuudha, Korneel Cabdi Guunde oo aad looga yaqaan deegaanada Galmudug. wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Axmed Sharaf Falegle ayaa keen u xaqiijiyay in uu dhacay weerarkan isagoo sheegay in uu soo kordhayo marba mar ka dambaysa qasaaraha ka dhashay weerarkaas. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka horeysa ilaahay jabadahay wara ka waraabiyo gacan ka xaqdarada dishay saraakiil safsare oo ciidamada dawladda kamid ah si adigu sheegaysana milashiyada hubeysan baa jidka u galay goor gaaban oo dhaweyd ayaana arrintu ay soo gaartay. marka wali aad looma tafasirin oo hay'adaha amniga ayaa warku wali jira. ilaahay tababarka naga siiyo saraakiishaas waa saraakiisha deegaanka oo maaragtay difaaca u joogay. milashiyadaas jidka u galana waa xaqiiqo waa lagu dhintay nimanka saraakiisha ilaa 5 nin bay ahaayeen. ciidan militariga waxay ka yimaadeen Balanballe u socdeen. nimanka waa nimankii waa ciidanka amniga weeye. shaqada amniga ay ku dhex jireen meesha ay ka yimaadeen meesha u socdeen iyo meesha oo hadda lagu qalay baa looga yaamaana shaqooyinkooda wateen. dhow sabareebina yimaadeen Gurceel way joogeen, Balanballe waa joogeen, meel walba shaqo qaran bay ku dhex jireen. waa meesha hadda aad sheegtay oo Balanballe u dhaxaysa iyo wadadaas Gurceel baartaan xoogli waa socdaa. baartaan kaliya maana gacan beer lagu soo qabto oo arrintaas aad looga hortago. shirarkeeda iyo kala kaclaanteeda caawa ilaa madaxtooyada hawl kala kama jirto. waana lagu hawleeyahay ciidamada iyo cid walba aad heegan ku jirta hawlgalkooda. marka hawshaasi hawl kulma mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay weerarkan oo salka ku hayo aanooyin qabiil oo horey uga jiray tuulooyin hoos yimaada Balanballe iyo Gurceel. ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Galmudug ayaa caawa howlgalla ka wada halka uu weerarkan ka dhacay kuwaas oo lagu baadigoobayo maleeshiyada weerarkan fulisay.